السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة ميل كستا جوجتين سو دوادا channel كيني حارونتا cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule asxaabta qiimaha badan ee dhinaca hawada nagala socota intaan usii guudo gelin maxaa la dhahaa topiceeni waxay naga codsanayaan si xushmad leh oo sharaf leh inaan like sameysin like wuxuu naga caawinayaa inaan dhiirigelin waaye ay nii soo baday hadhow videoyaasha ana bili aadan ba ahay inaan share sameysin subscribe sameysin hadda horey noo la joogtay atay saaxiibteena dhow markasta waxaan dhaha sheegaray channelka inaga askale hanoo koro hadda cusubtana soo dhawo waan dhahaya gacmo furan kusoo dhawaada channelkeeni waaye waxa way nigama tarayso lacag kuma furna waa free asxaabta qaaliga dadkana daawanayo dhan like ayaa laga ilaawin sheegaraya subscribe sameeya maanta topiceena maxaa waaye qof kasta ka saayo waxa waaye black seed waxa waaye xabad soodada wiilka ka hadlaya ta iyadoo miraha ah faa'iidooyinka ku leedahay dhinaca ragga ah ayaa rabaa inaan ka hadlo because anaga markasta waxaan ka hadalnaa dumarka iyo waxyaalaha kale soo nimanka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeedna dhinacooda laga caawiyo marka su'aalo badan ayaa laga soo weydiiyay dhinacaas waxaan rabaa inaan dhinacan uga jawaabo haddaan maxaa la dhahaa xabad soodada aan isticmaalo maxay iga caawinaysaa shukriya ayaa soo laalaabtay xabad soodada horta nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay ka soo aroortay dhinaca oo scientifically ama medicalka caafimaadka markii la baarayna sidoo nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam faa'iidooyinkeeda halkan lagu soo koobi karo rag iyo dumarba sida general haddaan ka hadlo qaas ahaan dhinaca dumarka iyo dhinaca ragga ah waxay u fiican tahay maqaarka bini'aadamka qofka isticmaala maxaa la dhahaa xitaa wajigiisa marsado oo ku massage gareeyo marka la inay tusi doonaa dadka timaha xitaa waxaa jira saliido inta la hagaajiyo oo saliido timaha la marsado timaha way dheeraysaa waa daawo because nabigeena ayaa noo sheegay diinteena ayaan ku naqanaa anaga dad muslimiin ayaan nahay alxamdulillahi rabbil caalamiin soo marka haddii aan ku darsado anayni tusaayo anuma isticmaalaa run ahaantii inayni tusaan rabaa marka asxaabta qaaliga ah marka shaaxan ku darsada aniga mar biyaan ku darsadaa toosa marka waa cabaa marka waxay leedahay faa'iidooyin badan calcium ayaa laga helaa vitaminka calcium la dhaho vitamin iron ay leedahay potassium ay leedahay selenium ay leedahay like 5-6-7 vitamin ay leedahay ayaa ku jiro laga helaa maxaa la xabad soodada soo marka hadda saan u isticmaalaa in tusaaya koobkan ayaan soo qaadanaya koobka marka soo qaato sida u isticmaalaa in tusaaya asxaabta qaaliga because inaan aragtina rabaa insha Allah so waa kan koobkeen waa kan so waatan maxaa la dhahaa xabad soodadii waa taas tabudada waayaa tasliida marka hadlaya asxaabta qaaliga si fiican isku fahano xabad soodada aad ayay u kulushahay ama wax yariisa laga rabaa intaasoo kale soo ma arkaysiin intaasoo kale ayaan ku shubtaa markaan ku shubto waxaan sameynayaa haddaa artid biyaha inta ku shubtid aad ku karkarinaysaa haddii kalena biyo kulul aad soo qaadanaysaa waa ku shubanaysaa like muu badnid biyo badan warabtid marka biyihii ku shubtid saasay noqonaysaa asxaabta qaaliga ah markay saas noqoto karaan noqdo asxaabta qaaliga cunug gabar yariisaan dhalay waaye oo ila hadlaysay soo markay saasay noqonaysaa way kala degaysaa intaantiin markay kala degto waxaan sameynayaa inta kore ayaa aniga shubtaa inta kale oo iska day haddaa rawan marmar toosan u cabaaya runta dayni sheego marka haddaa rabasaan iyadoo taa waxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa dabkan ku saaraa markay karkarto wax yariista kasoo laabto ayaan shaax ku karsadaa waa cabaa haddii kalena saan iyadoo tahay lindhanana ku shubtaa iyo malab qaada ah waa cabayaa marka faa'iidooyinka leedahay maxaa waaye wajiga quruxda ka dhigtaa qofka bini'aadamka skinkiisa la dhahay timaha ayay bixisaa ayaa la dhahay daas waxa way waxa generalka ay ka wada siman yihiin dadka bini'aadamka dhinaca ragga haddaan usoo jeesto waxay ka caawinaysaa waxaa la dhahay wiilka biyihiisa oo marka uu waxa la dhahay oo damage soo gaari lahaa ayay ka hortagtaa way hagaajisaa ayaa la dhahay spamka biyahana kore u qaadaa ayaa la dhahay marka waxa la biyaha wiilka uu sii daaya la dhahay sida oo maxay u egyihiin runta dad waaweyn aan nahay waxa lama qariyo anigana igu barteen markasta ka hadlaa wax ka xishooda ma waa caafimaad ah biyahaas waxa la dhahay sida oo maskax ama saas u socdaan marka qaar marxa jiro isdardara oo badan oo hadhow kulli isoo dilaayo soo marka waxaas ka caawinaysa inay waxaas isdardarin ay wax caadi shab ahaadaan ay ka caawinaysaa soo nimanka u fiican yihiin dareemadooda kor u qaada ana waxaan kula talin lahaa wiilasha Soomaaliyeed
inay ka agdhawaadaan xabad soodada in isku badin in isku dilin because wax yariis ayaa kugu filan hadii kale waxyaalo badan ay ku keeni kartaa waxay leedahay gaas ayay leedahay ma ku fiicna waxaan yariiska ku shumanaysaa biyaha kor ka shubo shaaha ku darso ama biyaha cabis ku darso cad waxa ka helaysaa waxaas oo waxa ka helaysaa faa'iidooyin oo dhinaca ragga ah waxa kale ka caawisaa ala dhahay nimanka raadinaya caruurta la dhahay fertilizer ayaa dhinaca dhalmada ay kor u qaadaa ayaa la dhahay soo marka waxyaalahaas dhan ay ka caawisaa inta lagu soo koobi karo asxaabta qaaliga ah ninka wiilasha ragga Soomaalida ayaa la hadlayaa hadda dumarka dhageysanaysiina aan niman qabtiin nimankiina u sheega soo ka caawiya dhinacaas aan dhihi lahaa soo marka ma rabo inaa wax badan sameeyo u fiidiyowga nagu dheeraado biyo way kala degan fiiriya soo ma jeedin taas ay noqdeen hadda karkarisid xitaa hadhow saas noqonaysaa qaar hoos ku horeysaa biyaha guduuda noqdeen haduu isbedeleen brown camal noqdeen biyaha brown kale uga baahan tahay biyaha ka shubanaysaa marka ka shubatid hada sheex cabisid oo ku kortarsanaysaa toos u cab dabka la hasaarin hadii oo rabtidna toos kan u cab dib ma laha waxay ku keenaysaa malaha calooshaada safeey ka dhigay nadiif wajiga ka dhigaysaa timay ku bixinaysaa dad dumar tahay waay hadda rag tahayna dhinaca oo dhasha ka caawinaysaa dhinaca nimanka madhuudka ka caawinaysaa waxyaalo badan ay ka caawinaysaa waxa vitamin leedahay potassium calcium iron selenium waxaas dhan leedahay ku ka badan oo inta aan ku soo steeynin ay leedahay soo faa'iidooyinkeeda inta lagu soo koobi karo waa geed barkeesan oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka soo hadlay daba galaan dhihi lahaa research badan sameeyeen dhihi lahaa sa uga faa'iidin halkaas ay hadda caana xitaa ku darsan kartaa caanihiin ku darsan dhahaya halkaas ay ugu sii guudo baxaya mar inay nagu dheereeyo fiidiyowga dadka fiidiyow badan ma jecla oo dheer ma daawadaan soo hadda wax ka faa'iideen asxaabta sheegareeya la sheegareeya dadka kale si wax uga faa'iidaan channelka nagu koro laagana dhagsiya laaga xumayniga tarasa laaga dad badan ayaa arkay hadhow fiidiyowaasha wiilasha ma sha Allah way socdaan inta dii la sheego soo waxa anigu idin hirgelinayaan ragga anigana waxaan noqonaysaa research badan ayaan u sameynayaa maalin kasta research gooni cunto gooni ayaan u fiirinaya wiilasha tartix ku leedahay halkan aan u soo deynayaa hada fiidiyowgan wuxuu noqonayaa oo fiidiyowgii saddexaad ama fiidiyow afraad oo ragga ku socdo soo ragga way dhiirigelisay runta daynii sheego anina fiidiyowshin waan daba gali doonaa insha Allah waan soo wax badan ayaan soo deyn doonaa halkaas ayaan u sii guudo baxaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh